كسو دوادا كلانكا أسلوب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومركلة إيا كلانكا أسلوب. كلانكا أسلوب ومركاسي برنامج أن كسو قادنا موضوعية كلا دوان إسلا مركاسين أن كو وريسانو بلشدا قيبه هذا كلا دوان هدابا مانتا برامجك waxa martin ugu ah Cabdinaasir Maxamed Alifley aad ma astaale Cabdinaasir Maxamed Alifley waa markaasi waa qof kamid ah dadka degan magaalada Iskalastoona isla markaasina ku leh shirkado maantana mawduuceena wuxuu markaasi ku saabsan yahay sida uu saameynta ugu yeeshay dadka markaasi shirkadaha leh saameynta uu ku yeeshay intuu cudurkani socday marka hore Cabdinaasir soo dhawow shirkada aad leedahay noocay tahay iyo shakhsiga qofka aad tahay aad ma santahay ala asluub iyo gaar ahaan sidoo kale waxaan mahad gaar u soo jeedinayaa kulanka asluub laftigiisa barnaamijkan dadka aad uga faa'iideyso noocyo badan oo kala duwan iyo mawduucyo kala duwan aad muhiim u ah aad bulshada uga faa'iideyso aad uga mahadsantahay marka hore sidoo kale waxaan mahad gaar u soo jeedinayaa isagana cameraman-keena oo isagana farta ka xiran aad uga mahadsantahay inta waxaa dheer magaca Cabdinaasir Maxamed Alifley lahaa waxaan deganahay gobolka Soomaaliland gaar ahaan magaalada Iskalastoona waxaan kamid ahay dadkan dadweynaha ganacsatada kamid ahay oo dhibaatooyinka weyn u geystay cudurkan kulli ka gudaha u sii gali doona aniga waxaan ka shaqeeyaa gaar ahaan qaybta gaadiidkan ka shaqeeyaa baawuraan leeyahay sidoo kale waxaan ka shaqeynaa qaybta xafiiska shaqadan la shaqeeyaa oo bulshada waxa u abuurnaa shaqo ama waxbarasho wax saas oo kale qaab noocaas oo kale ku shaqeynaa aadiyad inta aad ka dhawaajisay waad ku maasan tahay shirkadaha aad ka shaqeyso iyo inta ay macnaha noocay yihiin waxaan ku weydiinayaa saameynta uu hadda shirkadaha guud Sweden uu ku yeeshay cudurkan markuu bilowday wax yar ma naga sii kartaa aad ma astahay ala asluub horta cudurkan wadanka iyo gaar ahaan adduunyada oo dhan oo saameyn ku sameeyay anaga kaliya uma koobno haddana dadka ku nool bulshada ku nool Sweden inta waxa dheer cudurkan meelaha aad ka sida gaarka u saameeyay waxa kamid ah waa qaybta gaadiidka hoteelada iyo maqaayadaha isla socdo sidoo kale diyuuradaha macnaha duulimaadka oo kale marka duulimaadka maqaayadaha iyo hoteelada isla socda iyo gaadiidka waa intaas inta ugu weyn oo saameynta uu ku sameeyay cudurkan caqabkan hadda socdo aadiyad saameyntu marka ay imaado kadib wax macnaha markaasi xagga dawladda ka soo baxay oo ah inaad markaasi ay helaan caawinaad ku saabsan xagga dawladda inay ka helaan shirkadaha arimahaas wax ma ka soo baxay aad ma santahay way jirtaa dawladdu inay budgetyo kala duwan iyo miisaaniyad macnaha inay u diyaarisay haba u badnaadaan dadka shirkadaha waaweynka iska leh oo shaqaalaha aad u badan haysta u badnaadaan laakiin dadkan shirkadaha yarka laftigooda haysto waa la siiyay miisaaniyad loogu talagalay jirto miisaaniyada marka dhowr nooc u kala baxdaa way kala duwan tahay marka maadaama hadda aan kulli ka hadlayna inta ugu badan dadka bulshada Soomaalida waxay leeyihiin ganacsigooda waa ganacsi aad u yar waaye marka macnaha waxa isla marka kulli kaas anaga noqosayaan isleeyahay sidaa darteed marka dawladdu waxay ugu talagashay saddex nooc ugu talagashay haddii aad tahay shirkad yar oo ganacsigu nooc u doonaha noqdee qofka marka hore waxaa la sameeyay in uu qofka dalban karo in iskaadka uu dib ka bixiyo inuu dalban karo taa waa mid waxaa kaloo dawladdu ay sameysay fududeysay in lacagta arbasiivara la dhaho oo qofka shaqaalaha oo shaqo bixiyaha uu bixiyo oo qofka shaqaalaha laga bixiyo ayada lafteeda waxaa laga dhigay haafa laga dhigay oo qofkii 100% ayuu bixinayaa inta waxaa dheer qofka inuu codsan karo sidoo kale inuu codsan karo haddii ay shaqaale u joogaan qofka iyo qofka hadduu isagu ay meesha u furan tahay ama dukaan ha noqoto ama gaadiidle ha noqoto hadduu isagu meesha u furan tahay inuu isagana uu codsan karo tusaale ahaan inuu mushaharkiisa ama shaqaalaha mushaharkooda inuu codsan karo qaab noocaas ah ayay sameysay dawladda aad iyo aad maadaama aad ka dhawaajisay inay saameyn xoog leh ay shirkadaha ay had kuwa yaryar iyo kuwa weyn ay ku dhaceen sidoo kale inay macnaha dawladdan ay u diyaarisay markaasi siyaabooyin kala duwan oo markaasi ay u codsan karaan caawinaad waxaad ka dhawaajisay dadka shaqaalaha kale ah oo rabo inay macnaha maadaama qofku hadii uu shaqeeyo wuxuu u baahan yahay mushaarkiisa oo bisha uu shaqeeyo wadankan oo ognahay wax walba waxay qaataan process iyo ma aragtay inay waqti qaato dalabka waxyaabahaas arimahaas macnaha qaabkeed dalabka sidoo u muuqda ma mid degdeg ah mise waa mid markaas waqti qaadanaya horta hadii taas aan dib ugu laabano shirkaduhu hadda dadkii shaqaalaha ahaa inta ugu badan waxa la siiyay wax bashal dhaha la siiyay kulli af Soomaaliya yaqaan ma wax lagu dhaho macnaha ubsayn qofkii shaqada lagama burinin
laakiin inta xaaladda si ku meel gaar si ku meel gaar ayaa shaqaalihii shaqo jirin si ku meel gaar ayaa macnaha shaqaalihii saas lagu sameeyey marka haddii aad shirkad leedahay tusaale ahaan ama dadka shirkadaha leh waxaan uga faa'iideynaynaa qofka wuxuu codsanayaa laba arrin midkood lacagihii canshuuraadkii ama lacagtii dawladdu ay ka rabtayna dib u dhigi karaa lacagta markaas qofka waa laga rabaa dib u dhigan karaa sidoo kale wuxuu codsanayaa macnaha Televex market macnaha la dhaha kulli website-ka aad soo gelin doono meeshaas ku codsanaya macnaha lacagta marka waxa la fiirinaa qofkan intuu mushaar bixiyay iyo isaga intuu ku bixi jirtay inta shaqaalihiisa uu siin jiray waa la soo tultulgaraynaya kadib meeshaas ayaa go'aan lagu soo gaaraa go'aankana waa degdeg waad maasan tahay shakhsiyan hadda intaad arrimahan ay socdeen cudurkan saameyntan ku yeeshay dhammaan shirkadaha Sweden dhammaan guud ahaan shakhsiyan ma jiraan wax adiga si gaar ah ku saameeyay aad maasan tahay horta cudurkan maadaama uu dadka ka shaqeeya gaadiidka iyo dadka la shaqeeya sideedaba anaga moogtahay haddaan gaadiid leenahay iyo haddaan xafiiska shaqada aan la shaqeyno intaba dadaan la shaqeynaa shaqadeenu dad ay ku xiran tahay marka way anaga si lacnaa si la taaban kara ayay noo saameysay sababta waxay tahay tusaale ahaan maadaama aan gaadiid leenahay anaga dadka xanuunsan dadka isbitaalada la geeyo dadka laga soo qaado dadka ballamaha leh sida quuqreeso oo kale dadka noocaas aan qaadi jirnay waxaan kaloo qaadi jirnay dadka waayeelada ah oo isbooqdo dadka waayeelada ah oo la geeyo meelaha sida hamshaanistiga oo kale sidoo kale waxaan qaadi jirnay dadka xanuunsan laftigooda oo shaqada dawladdu ay u samayso marka dadkii oo dhan macnaha isu socodkee la joojiyey dadkii macnaha ballamaha dheerka lahaa tusaale ahaan sida qalliinka oo kale iyo isbitaalada kale oo fog la geyn jiray ayagana waa la joojiyey laftigooda marka annaga gaadiidley haddaan nahay si toosay noo saameysay sababta waxay tahay anaga dadkan ka shaqeyn jirnay dadkina isu socodkooda waa la joojiyey waa maasan tahay sidaad maaragtay u sharaxday su'aal kale oo daba xiriirta iyadana waxay tahay dadkii shaqaalihii ahaa ee gaadiidka macnaha kaxeynayay xaaladooda waa sidee aad maasan tahay dadka horta shaqaalaha ah sida aan kuu sheegay maadaama dawladdu ay caawinaad iyo miisaaniyad ay ugu talagashay ay jirto qofkii marka dadku waxay u kala bixeen gaadiidleyda qofkii dadkii haysan karo oo ka bixi karo oo macnaha masruufkoodii bixin karo kulley inuu haysto haddii ay jirto macnaha inuu ka faa'iideysto miisaaniyadda dawladda ay ugu talagashana inuu codsado qofkii intaa ka bixi kari waayana wuxuu ku qasban yahay marka qofkii shaqaalaha inuu dhaho shaqo ma hayo shaqo qofka ma hayo markuu dhahna kadibna kulley wuxuu usii gudbi doonaa hay-adda la dhaho akaas uu kusii gudbi doonaa akaasadii marka laftigeeda la kala qaybiyey oo waxaa la kordhiyey tusaale ahaan lacagtii maalintii qofka loo xisaamin jiray la kordhiyey qofkii hadduu maalan muddo soo shaqaynayay lacag aad u badan uu qaadan doonaa oo ka duwantii hore waagi hore la bixin jiray haddii uu muddo kooban shaqeeyena ayada laftigeeda wuxuu qaadan doonaa lacagtii caadiga ahayd oo normalkeedu qaadan doonaa mana ku xirnaan doonto inuu qofku hal sano soo shaqeeyey mise 6 bilood inuu soo shaqeeyey qasam ma ahan qofka hadduu 2 bil ama 3 bil shaqeeyo xataa akaasada xaq u leeyahay aad dadka aan oo kaasaha ku jiro markaas oo aan midlaam ka ahayn ama xubin ka ahayn xaaladdu sida naqan qofka hadduusan akaasaha xubin ka ahayn nasiib darro waxaan ku anagu ka faa'iideysanay barnaamijkan waa qasab qofka inuu akaasa uu xubin ka noqdaa laakiin maadaama uusan ka ahayna hadduusan ka ahayna dee kolley markaas waxay noqonaysaa inuu ku soo laabto qaybtii macnaha qaybtii inuu ku soo laabto sida kamuunka kale qof dib u soo laabtay noqonaysaa oo kamuunkana qofka u fududeeyo u dhaqaale ka codsada aad maxaa is leedahay hadda xaaladdu sidee tahay waad og tahay maxay tahay waxyaabaha xigi karo arrintan cudurkana mugli uu sii socdo xaaladda sidee kula muuqataa kulley horta cudurka ilaaha naga qaado marka hore kulley saadaalo la sameeyey way jiraan oo waxaa la leeyahay ilaa kulley September Agosto uu gaari doonaa iska xirna macnaha qaabkan xirnaashaha wadanka uu gaari doontaa saas waa la leeyahay laakiin qadarta ilaaha iskale marka uu ilaahay qaadayna kulley ilaaha isaga og laakiin sida hadda muuqato kulley haddii la dhaho xataa wax kasta dib loo furaa waqti badan ayay qaadan doontaa dadkii macnaha uu dhibaatada ama saameynta u geystay inay soo kabsadaan ay dib u soo laabtaan waqti badan ay qaadan doontaa aad taladaada guud iyo dardaarankaaga guud inta barnaamijka soo xiran maxay tahay aad u maasna marka hore waxaan si gaar ah kugu mahadcelinayaa adoo kulanka Isluuba adoo cali Isluuba iyo barnaamijka kulanka Isluuba aad aan kugu mahadcelinayaa waan ku xiranahay waan la socdaa barnaamijyo aad u kala duwan aad soo deysaa bulshada u faa'iideysaa horta aad u maasan tahay waqtigaaga qaaliga u hurtay adigoo markaas dee wax dana gaar ah aadan ka lahayn oo raba inaad bulshadaada macnaha waqtigaaga inaad uga faa'iideyso
aad ugu maastaa markooda taa waa taas intaa waxaa dheer oo rabaa inaan uga faa'iidaysto annagu waxaan horta Soomaalideena dad garab rarataan nahay wadankan dalxiis maana u imaanin qof kastaba dan iyo duruuf keentay marka sidaa darteed waxaan leeyahay dadka da'da yarna waa inay waxbarashada ku dadaalaan dadkaanan oo xoogsan karo oo shaqaysan karana waa inay shaqaystaan qofkii ku soo biiri karo inuu ganacsiga qayb ka noqdo ama inuu wadankan qayb ka noqdana de annagana waxaan dheernahayna waan ku caawinaynaa sidoo wadanka qayb uga noqdo u shaqaysto waa ku caawinaynaa marka waxaan leeyahay marka Soomaalida shaqa looga bartay aynu wada shaqaysano ayaan leeyahay aad iyo aad ay u maasan tahay inaad maanta kulanka maanta aad marti noogu noqoto isla markaasina aad waqtigaaga siiso daawadayaal halkaasina waxaan ku soo koobayaa kulankeena maanta oo markaasina marti noogu ahaa Cabdinaasir Maxamed Alifley oo markaasii kamid ah ganacsatada magaaladan Iskalistuuna oo markaasii kula shirkado ta aan kulankeena kulankiisa xigay ku kulmi doono waa cali asluub oo idin leh sida iyo nabadgelyo sug haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar kanaalka si aad noola socoto haddii aad asxaabteena ka mid tahayna waad ku mahadsan tahay